kaliya ma ahan in midka hadda kursiga ay sheeg Fahad Yaasiin laga hadlo oo la yiraahdo kursigaas la boobaya kumanaan 100 iyo 30 ka hadda la soo doorto dhamaan waa la soo boobay dadkii xaq u lahaa inay u tartamaan waa la duudsiyay oo awooda loo sheegtay lacag baa loo sheegtay waxyaabo badan la iskugu daray Fahad ninka la yiraahdo qalad uu sameeyay qaladaadu galay qaladkii waa lagu qabsaday raga ka faramaroojiyay oo yiri laga day qalad maahan haata orda inuu hadii la maayo xildaanimo iyo ku gambado ku gaato ku gaari maayo wixii ilaahay u qoray oo helaa dhawaan iyo dheeraan waqti oo helaba waxa ilaahay u qorin heli ma waxa uga fiicnaa lahayd inuu maanta xil raajo Ustaad Abdurrahmaan Amiin waxaan kamid ahay dhalinyaro runtii kamid ah dhalinyaro u doodo arrimaha bulshada runtii haddii aan fikirkay ka dhiibto arrimaha hadda socda qaasatan beledweyne issue horta runta haddii la sheego waxaa jiro doorashada sideedaba doorashada oo hadda socoto runtii ma dhihi karno doorasho wanaagsan ayaa socoto mar hore hadday wanaagsaneed laakiin hadda ma wanaagsana ayadoo dadbaneed haddana la sii dadbay oo haddana waxaa laga dhigay doorasho aan runtii nuxur bacaan lahayn marka ani fikirkayga waxaan leeyahay doorashada sanadkan socoto doorasho ma ahan waxaan madaxda iyo dhammaan bulshada rayidka ugu baaqi lahaa inay waxaan hadda socdo wax ka wanaagsan iyo sida wax ka fiican inay la imaadaan si ay shacabka Soomaaliyeed oo sheegay ay ugu qancaan sababtoo ah doorashada haddii doorashadii ay qaldan tahay ergadii ay qaldan xildhibaankii ay qalad ku imaaday hadhowna waxaan sugaynaa madaxweynaha asagan si la mid ah oo ku imaaday madaxweyne dadban soo marka wixii dhan haday saas noqdaan wadankan maseerkiisa runtii kama talinaysa arinta ayada ani waxaan leeyahay nidaamka hadda wax lagu wado dawladda Soomaaliya ay wax ku wado hal bedelo kursigan beel baa iskale maadaama wixii 4.5 ay ku salaysan yihiin beesha iskale ha loo daayo kursigaas haday 5 qof u tartamaysa haddii 2 qof u tartamaysa inta beeshaas ka soo jeedo kursigaas u diyaarsan inay ku tartanto ha loo sii daayo yaan la dhihin hebela loo xiray soo marka waxaas waa caburin siyaasadeedna hadee waa wax ma noqonayso wax runtii dooro wax hufan kama soo baxayaan marka insha Allah taala fikirkayga intaas aan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya ha noolaato insha Allah doorashada sideeda dhanba waqtigan waa lagu dheelay meel ay gaari doontana Ilaahay baa yaqaan cidda hadda ku dheelaydo oo wanaagga moodaahuna meeshii la gaari doonto Ilaahay baa yaqaan laakiin wax walba waxa la gelshaa niyadda la gelshaa in lagu xisaabtamo waxa dambe waxaan aad cuntid maxaa ka imaanaya aad dagaashid maxaa ka imaanaya aad nabad geliyo ku dhawaaqday maxaa ka xumaanaya maxaa ka imaanaya qofku inuu yiraaha la raba kitaab hadduu meel saaran yahay oo kitaab jaamac yahay waxa la yiraa kitaabka la iska ma akhriyo qalka lama galay waxa la yiraa yaa akhri jiray hebel iyo hebel hay ka heli jiray hebel ka macallimayo hebel ka macallimay alla ilaahay aduguna akhri waa wanaag markii laga rabo way dagaal yaa gali jiray hebel iyo hebel hay ka dheefeen waxba kama dheefin iska dhaaf doorashada maanta ka socota meesha la yiraahdo beledweyne waa nijaas hore oo nijaas dambe lagu daray ilaahay baa ummadiisa ka badbaadinaya ku xisaabtan ilaahay baa ka badbaadinaya ummadda ilaahay baa ka badbaadinaya ummadna ilaaha samaystay ilaaha le ummadda ilaaha nafta gelshay ilaahaas nafta gelshay naftoodana ilaashanayaana ka badbaadi doona waxa ay ku taamayaan gaari maayaan ilaahay idankiisa Fahad aku soo hartay Fahad ninka la yiraahdo qalad uu sameeyay qaladaadu galay qaladkii waa lagu qabsaday raga ka faramaroojiyay oo yiri laga day qalad maahan haata orda inuu hadii la maayo xildaanimo iyo ku gambado ku gaato ku gaari maayo wixii ilaahay u qoray oo helaa dhawaan iyo dheeraan waqti oo helaba waxa ilaahay u qorin heli ma waxa uga fiicnaa lahayd inuu maanta xil raajo
waxaa ficnaada inuu ummadii uu dambiga ka galana cafis weydiisto ilaahayna u tooba keeno waxaasoo dhan kulli waa nijaasta oo maaragtay ka muuqata meesha halla wada arka waaye kulli ummadaasoo dhan hay aragto indhaha halla saaran weeye wax baraka iyo wax iimaana iyo wax caqli midna kama soo socdaan soomaali allah ka badbaajiyo asaga laftiisa ilaahay ha nabadgelsho oo waxaan uu ku jiro inuu ka leexdo oo ka bayro allah tuso midka kula talaayo oo qaabka u sameeyayana iimaanka kullu iimaanka allah gelsho doorashadu inay boob tahay waxa cadaynaya ciidana lagu bilaabo waa ogeyd xamar baalka la yiraahdo beledweyne oo dhan inta wada soo gashay inta wada ka baxday iyo inta airportkii kullu waxay ahayd ciidan waa fiirsanay telefishinada iyo dunida waa laga fiirsanay waa muuqday ma garatay hadda baasaaba boob ku cadayahaydaba boob ma tahay mase maaha cidna la weydiin maayo boobkaas inuu u suuragali doono iyo inuu u suuragali doono ilaahay baa caalim ku ah ilaahayna ka badbaadsan leen annaga dhan allah naga badbaadsan leen ayagana iimaanka allah gashaan leen intoodii hore hadday ku nabad galaan cafis ha weydiistaan ummadda dambiga ka galeen aan leen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.